kulanti iyo daawasho wacan oo wanaagsan daawadayaal halka naga daawanaysaan waa Saxan Production daawad hadii ay tahay markii kugu horeysay waa channelkan soo booqatid fadlan ha ka baqeelay inaad subscribe kaadid gambalelka afratid si ay ku soo gaaraan wararkii u dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka qodobadaan idin hayno waxa ka mid noqon doona Cabdikariin Xuseen Guuleed oo soo saaray baaq ku socda dawladda federaalka iyo beesha caalamka Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta dib ugu soo laabtay caasimadda dalka Soomaaliya ee Muqdisho Jubbaland oo fariin culus u dirtay beesha caalamka wasiir Goodax Barre oo ka jawaabay cabashada ardayda maamulka Puntland qodobadaas wixii kale nagu soo kordhayaad ku daawan doontaan daawad hadii ay tahay markii kugu horeysay channelkana soo booqatid fadlan aga baqeelay inaad subscribe tiraahdeed gambalelkana afuratid si ay ku soo gaaraan wararkii u dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka waana ku mahadsantahay daawashadaada isku soo noqod wanaagsan daawadayaal madaxweynihii hore ee Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa soo saaray war saxaafadeed uu kaga hadlayo xaaladda guud ee dalka uu ku saleysan yahay 3 sano kadib doorashadii madaxtinimo ee dalka ee ka dhacday 2007 ee uu ku soo baxay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo war saxaafadeedkan oo ka koobnaa 2 bog ayaa lagu sheegay in dawladda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay ku fashilantay waxyaabihii loo idmaday iyadoo uu sheegay in Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha haatan xilka haya uu ku mashquulay dalal shisheeye waa sida uu sheegay Cabdikariin Xuseen Guuleed madaxweynihii hore ee Galmudug gudoomiyaha madasha xisbiyada qaran Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo safar ugu maqnaa dalka dibadiisa ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya madaxweynihii hore ayaa waxa soo dhaweeyay qaar kamid ah madaxda xisbiyada ku mideysan madasha qaran iyo xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya odayaal dhaqan iyo ururada haweenka dhalinyaro sidoo kale Sheekh Shariif Sheekh Axmed gudoomiyaha madasha xisbiyada qaran ayaa uga mahadceliyay shacabka ku soo dhaweeyay garoonka Aadan Cadde waxa uu uga mahadceliyay soo dhaweynta ay ugu sameeyeen garoonka Aadan Cabdille Cismaan dhanka kale gudoomiyaha xisbiga UPD madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta dib ugu soo laabtay caasimadda dalka Soomaaliya ee Muqdisho waxaana halkaas ku soo dhaweeyay xildhibaano ka kala socday labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya iyo xubno matalaya xisbiyada ka dhisan dalka madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa maanta dib ugu soo laabtay caasimadda dalka Soomaaliya kadib safar ay ugu maqnaayeen dalka dibadiisa madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland oo ku sugan duleedka degmada Balad Xaawo ayaa fariin culus u diray beesha caalamka waxa uu sheegay in beesha caalamka ay ka codsanayaan in ciidamada uu wato Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee ka socda dawladda ay dhibaato xoogan ku hayaan gobolka Gedo waxa uu sheegay in faragelin ay soo galiyaan sidoo kalena halkaas laga cabsi qabo in dagaal xoogan uu dhex maro ciidamada Jubbaland iyo kuwa dawladda federaalka Soomaaliya ee ku sugan Gedo maalinkii shalay ayay ahayd in dagaal xoogan uu dhex maray ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa uu hogaaminayo wasiir Cabdirashiid Janan dhaqdhaqaaqyo xoogan ayaa haatan laga dareemayaa degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo taasi oo laga cabsi qabo dagaal dhex mara ciidamada uu wato wasiir Janan iyo ciidamada dawladda federaalka ee ku sugan deegaankaasi Balad Xaawo wasiirka wasaaradda waxbarashada dawladda Soomaaliya Mudane Cabdullaahi Goodax Barre ayaa ka jawaabay cabasho ka soo yeertay ardayda Puntland waxa uu sheegay in ardayda maamulka Puntland ka dawlad federaal ahaan ay siinayaan shahaadada dawladda federaalka Soomaaliya kadib khilaaf xoogan oo ka taagan maamulka Puntland iyo dawladda federaalka Soomaaliya iyadoo maalin ka hor madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani uu u jawaabay wasiirka waxbarashada Cabdullaahi Goodax Barre uu sheegay in ardayda maamulka Puntland ay ka qaadi doonaan maamulka Puntland waxa uu sheegay in shahaadada maamulka Puntland laga aqoonsan yahay meelo far badan oo wadamada kamid ah guud ahaan waa naga intaas daawadayaal hadii ay tahay markii ugu horeysay oo aad soo booqatay channelkan daawadaha ka hilmaamin inaad subscribe tiraahdo gambalelkana afuratid daawashadaaduna waa inoo muhiim